kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada warka habeenimo ee telefishinka Sahal Cable TV. taariikhda goorsheegtada waa September 8 2022 habeen khamiis jimci soo galayo. warkan anigoo Shacib Daad Maxamed ah ayaa la diyaara qodobada ugu door korona warkan habeenimo caawa aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomiyay safiirka cusub ee Kenya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya. waxaad ku maqli doontaan in taariikhda gaarka ah ee duqa magaalada Muqdisho oo markale madaxweyne Xasan Sheekh uu magacaabay inay uu hogaamiyo gobolka Banaadir. qodobadaasi qodobo kale oo ay kamid tahay qaramada midoobay oo ku baaqday maamulada Soomaaliya iyo dowladda federaalku inay ka wada shaqeeyaan in xaaladaha abaaraha iyo xaaladaha horumarinta Soomaaliya ayaad ku maqli doontaan in warkan habeenimo caawa hase ahaatee bulshay bushaaro idinkuna bil khayr dhaha gawaarida dhacaysiyo shilku waa dhibaate dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen afartiisa dhaadheer dhuuxu uu shumaayay qabadha waxalis ah haddii dibadda dheer iyo dhulka laba la geyn jiray wuxuu dhaqaalaha haysiyo hantina lagu dhamayn jiray taasi way dhammaato rabbi baana dhaafsho dhakhtarkii lafaha oo qaliimada dhameeyo waayo arag dhammaysaa dhinacaaga jooge dhayo boogahaaga oo dhan kaleeto haw kicin dhaqso booqo oo gaar National Hospital. ma leedahay rabitaanka cuntada oo kugu yaal miisaankaaga oo hoos u dhaca mise jecesha inaad kordhiso miisaankaaga jirka shirobada Saybon ayaa xalinaysa dhammaan waxay ka kooban tahay maadooyin kala duwan oo firfircooni geliya jirka shirobada Saybon oo laga isticmaalo dalalka Hindiya Kenya iyo Ethiopia ayaa hadda la keenay Soomaaliya waxaana soo saartay shirkadda Geno Pharmaceuticals Limited Company shirobada Saybon waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cunto xumida carruurta iyo dadka waaweyn gaar ahaan dadka ay haysato jirro daba dheeraata ama nafaqa darrida kordhinta hamuunta gaajada iyo rabitaankaaga cuntada waxay kor u qaadaa rabitaanka inay wax cunaan dadka nafaqa xumadu hayso yar iyo weynba ilmaha miisaankoodu hooseeyo oo ay kor qaado waxaana ku jira fitamiino iyo macdan kala duwan waxay ku timaadaa noocyo kala duwan sida Saybon Syrup oo ku timaada 200 ml waxaana qaadan kara dadka waaweyn iyo carruurta sanadka dhaaftay Saybon Drop oo ay isticmaali karaan carruurta 6 bilood iyo sanad jirada ee ka cabanaya cunto xumida ama ay yartahay rabitaankooda cuntadu Saybon Capsule iyo Saybon Balayn shirobada Saybon waxaa dalka ku keenay Sahal Pharma sidoo kale wuxuu ku keenay shirobada gaaska ee caalamiga ee Bactica Gel oo loogu talagalay dadka qaba gaastirikada lagana isticmaalo dalalka Kenya iyo Ethiopia shirobooyinkani waxaad ka heli kartaa dhammaan farmashiyaasha Muqdisho iyo gobolada dalka faahfaahin dheeraad kala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran intaadan isticmaalin kala tasha dhakhtarkaaga isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale habeen wanaagsan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safiirka cusub ee Kenya u soo magacaabaday Soomaaliya ka gudoomay warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka warqadaha aqoonsiga dajirnimo kaga gudoomay safiirka cusub ee Jamhuuriyadda Kenya u fadhin doona dalkeena Soomaaliya mudane Thomas Kakabutu dajire Thomas ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan iyo fariin uu kaga siday dhigiisa dalkaasi William Ruto isagoo shacabka iyo dowladda Soomaaliya uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee ay u fidiyeen waxa uu ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarinta iskaashiga labada dal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa tilmaamay ahmiyadda ay dowladda Soomaaliya siinayso hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo ganacsi ee dalalka gobolka Afrika iyo caalamka taas oo ku saleysan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay filla Soomaaliya dheef wadaag iyo iskaashi wadajir ah oo ku aadan xoojinta amniga xasiloonida iyo la dagaalanka wax walba oo amniga dalalkaasi liddi ku ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh ayaa danjire Thomas u sheegay in dowladda Soomaaliya ay gacan ka siinayso gudashada waajibaadkiisa diblomaasiyadeed waxa uu u rajeeyay inay si wanaagsan uga shaqeyn doono danaha ay wadaagaan labada jamhuuriyadood ee dariska haddaynu dhankaasi filla Soomaaliya kaga nimaanana xagga xafiiska ra'iisul wasaaraha shirka golaha wasiirada toddobaadlaha ayuu ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre u shir gudoomiyay
dhammaan golaha wasiirada ayaa ka qayb galay waxaana looga hadlay arrimo fara badan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ee ku shir gudoomiyay waxaana looga hadlay xoojinta qorshayaasha sugidda amniga, dardargelinta gurmadka abaaraha iyo barnaamijka geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. shirkan oo warbixino looga dhageystay wasaaradda amniga, arrimaha gudaha, maaliyadda ayaa ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha looga dhageystay warbixin ku saabsan halka ay marayaan howlaha gurmadka lagu samata bixinayo shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay laga maarmaan u tahay in la sii xoojiyo gurmadka si loo badbaadiyo malaayiin kamid ah bulshadeena ay saameysay abaartu. wasiirka amniga gudaha ayaa shirka isagana ku soo bandhigay warbixino la xiriira howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada qalabka sida ay ka sameeyeen dhinaca sugidda amniga iyo xasilinta deegaanada laga xoreynayo nabaddiidka. wax lagu sheegay war-saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. wasiirka maaliyadda ayaa warbixino muhiim ah ka siiyay halka uu marayo barnaamijka geedi socodka deyn cafinta iyo tallaabooyin loo baahan yahay in la qaado si horumar looga gaaro deyn cafinta Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu magacaabay duqa cusub ee gobolka Banaadir. gudoomiye hore u soo noqday xilkan u soo hogaamiyay 5 sano ee Xasan Sheikh Maxamuud uu dalka ka ariminayay ayaa mar labaad loo doortay. yaana idinka hor dhicin waa kuma taariikhda maxaad ka taqaanaa taariikhda gaarka ah ee gudoomiyahan la magacaabay. Cawil Yuusuf Ciise ayaa warbixintan inoo eegaya. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa markii labaad noqonaya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho kadib markuu xilkaasi u magacaabay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. magacaabista Yuusuf Madaale ayay madaxtooyadu ku sheegtay in lagu saleeyay aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan hore u soo qabtay. madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horay xilkan u soo qabtay. qoraal lagu baahiyay barta Facebook ee madaxtooyada ayaa mas'uulkaasi loogu amaanay inuu door wanaagsan ka qaatay dib u dhiska Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka filaya duqa cusub inuu muhiimad gaar ah siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, dib u heshiisiinta, bilicda iyo baahinta adeegyada asaasiga ah oo dhammaantoodba ay dawladda haatan jirtaahi u aragto inay muhiimad gaar ah u leedahay. mas'uulkan 57 jirka ayaa noqonaya mas'uulkii afraad ee markii labaad ku soo noqda xil uu horay u soo qabtay, waana dawladda haatan talada haysa, iyadoo ay xusid mudan tahay in taariikhda Soomaaliya ee dhow aan lagu xasuusan in ay hal maamul ku kulmaan 4 mas'uul oo xilkooda dib ugu soo noqday. dhinaca kale, 3 mas'uul ayaa noqonaya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo markii labaad ay xilka u doorteen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya 15 May isla sanadkan 2022. mas'uuliyiinta kale ayaa kala ah gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo gudoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi Cabdullaahi. duqan soo rogaal celiyay ayaa ka mid ahaa asaasayaasha xisbiga nabadda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheikh, isla markaana ay muddo dheer wada shaqayn lahaayeen madaxweynaha. xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi ayuu ahaa ka hor inta aan loo magacaabin duqa Muqdisho sanadkii 2015 ilaa 2017. Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ku magac dheer Madaale ayaa ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1965 isla markaana caasimadda Soomaaliya ku qaatay waxbarashadiisa hoose iyo dhexe, halka dugsiga sare iyo heerarka kala duwan ee jaamacaddana uu ku soo dhigtay dalka Masar. Cawil Yuusuf Ciise, wararka warbaahinta Sahal TV, magaalada Boosaaso. wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka maamulkaasi inay ka hortagaan in iskana celiyaan cid walba oo maamulka deegaanadaasi iyo waliba degmooyinkooda ka wada wax uu ku sheegay amni darro. warbaahinta ayuu la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. waa qofka haddii cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa lala dagaalamo waajibay ku tahay. waalidkeena lala dagaalamay, hantideena lala dagaalamay, deegaanadeena lala dagaalamay, marka maxaa noo haray? marka waxba nooma harin. waxa waajib nagu ah marka in la istaago, askartii la wacyigeliyo. askarigan markii oo la wacyigeliyo, aayadda quraanka waxay tilmaantay loo sheego oo sida maaragtay bariyahan baraha bulshada kilibka qabsaday waad aragteen lagu sameeyo. askari wuxuu naqana oo khushuucsan, wuxuu u dagaalamayn uu og yahay hadafku uu u socdan uu og yahay. laakiin anaga waxaan sameynaa askariga markii dibowga loo soo xiro magaaladiisu iskaga jira maalmo kadibna nakeena la leeyahay dagaal la aada
asigoo waxaad arkaysaa marka maalin kadib kaasoo dhuumanaya ama kasoo baxay niijabsan ama uusan dagaalami karinba dhiirigelinta meesha ka maqan oo qofka in la yidhahdo waxaad ku dhimanaysa waxaad tahay adiga man qutila duuna maalihi fahuwa shahiidun ninkii asigoo hantidiisa xoolihiisa ku dagaalamaya la dilo waa shahiid taasaa ka maqan dhiirigelintaasaa ka maqan oo nabi muxamedna ugu bishaaray dadka cirdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda ay u dagaalamayaan ay ilaalinayaan waxaaba ka sii daran waalidkaagii iyo walaalahaadii iyo maaragtay caruurtaadii ayaad u dagaalamaysaa waa duulaan lagu yahay marka qofku waa inaad u sheegtid al-shabaab markii oo maaragtay asigoo jalbaysan kusoo galayo oo asigoo oynayo kusoo galayo shiikha ama qofka meesha taagan oo shabaabka guwaabinta u qaabilsan intuu aayaad ku dul akhriyo oo been ugu fasiro uu soo orda asigoo maaragtay uusan laabanaynin kusoo gala uu isqarxinayo aayadii maskiin waa diin ma baranin qur-aankii ma baranin axaadiistii ma baranin qofkii marka waxaad arkaysaa aayad qur-aana loo soo qaadana waxaa leeyahay nabi muxamed sal allahu calayhi wasalam xadiid qur-aan uu soo qaadana nabi moxamed saasuu dhahay wuxuu leeyahay aayad qur-aan uu soo qaadana wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maa lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili illahi thaaqaltum ila alard araditum bilxayaati addunya min alaakhira fama mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ila qaliil wuu leeyahay infiruu khifaafan وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ninkii wuxuu kusoo galaa isigoo jalbaysan aayaadkaasna ma aha in oo dad islaam ah la laayo oo maaragtay soomaali ay ku duulaysa ma aha nin masaajid ka soo baxayaa la dilay nin masaajid ku jira la qarxiyey marka saas ma aayaadka saas ma laakiin haddaad tiraadid qofkii oo adig aad ku tiraadid nabi muxamed sal allahu calayhi wasalam wuxuu la jihaadayay gaalada ayuu la jihaadayay munaafiqiinta hadda nabiga lama jihaadayn markaas waa maaragtay ayagoo agtiisa ay joogaan ay la ogyihin inuu munaafiq yahay ayaa faraha laga qaaday nin baa maalin waxaa dhacday nabi moxamed sal allahu alayhi wasalam intuu u yimid dhigtu wax ugu sheegay nabiga oo waxaa la arkay saxaabadii asigoo ku dhex jiro oo waxaa la arkay idhab uqtulu orod bax dil asigoo dhahay ninkii laba tallaabo markuu qaaday wuu u yeeri nabiga marka ninkii dhigtu wax ugu sheegay waa wuu u yeeri kaali uu dhahay ayashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ninka aad ii sheegtay oo adiga ninka ila nin baa sir buu u sheegay nabiga wuxuu yiri rasuulka ilaahayow nin waxaa jiro oo munaafiq ah oo muslimiinta ku dhex jiro oo maaragtay sirti muslimiinta dhan faafinay ayaa nagu dhex jiro yiri oo gurigiis meeshaas ah nabiga marka waxaa la maqlay asigoo dhahay orod soo dil asxaabtii way yaabeen nabiga haddana ninkii u yeeri kaali u dhahay soo laabo ninkii soo laabtay markaas wuxuu ku yiri ayashhadu an laa ilaaha ila allah maqira ninkaas ilaahay moo ilaah ka inuusan jirin ha aniga inaan ahay rasuulka ilaahay maqira ha laa taqtulhu hadil inuu dhahay nabi moxamed sal allahu alayhi wasalam fiiri marka nin munaafiq oo la og yahay waay munaafiqnimadiisna la og yahay ayaa la iska dhaafay marka nimankan marka waxay sameeyeen oo maaragtay dadka oo ay keliyaasha intay kala baxeen oo qofkii markii waxyar ay arkaanba dadka horta ay ku gowraceen dadkii way cabsadeen way argagaxeen gawaaridiyaa la gubay hoteeladiyaa la galay meel kastaa la qarxiyey dadkii dhan waa argagax lagu riday xadiidka rasuulka sal allahu alayhi wasalamna waxaa waaye nin muslim ah ninka kale muslim ma argagixiyo ma cabsigeliyo dadka marka dadkii dhan way cabsigeliyeen haddana waxay leeyihin annaga idinka idinma rabno muslimiinaad tihiin idinma dilayno idinma haysano haddana saas ay tahay dadkii argagax ay ku ridayaan ay cabsigelinayaan marka intaas waxaan ka wadaa ninka wuxuu ku soo galaa oo shabaabka ah asigoo aayaad lagu dul akhriyey aayaadkiina si qaldan loogu fasiray oo la yidhi orod aabbaha soo dil walaalkaaga soo dil abtigaaga soo dil adeerkaaga soo dil asigoo la dhahay oo aayaad lagu dul akhriyey oo qalad ah oo aayaadkii si beena loogu fasiray maskiin waay wax ma baranin cilmi ma yaqaan axdiis ma yaqaan maaragtay asigoo soo orday qur-aankii ma yaqaan asigoo soo orday ayuu ku galaa weyaan haddii hiiraan iyo maaragtay ii sheeg adiga galgaduud iyo dhulkaas shabaab laga soo saarayo oo meeshay usoo socdaan ay tahay koonfur galbeed adigana fadhi kuuma yaala marka in la kaco laisdiyaariyo waa waajibna saaran arrintaasay ka mid ahayd arrinta aan u kacanay askartii la diyaarinayay shacabkana way soo socdaan way maaragtay waa in la dhiirigeliyo waa in la kiciyo arrimahaas maaragtay waa arrin oo maaragtay madaxweynaha iyo wasiirada iyo xildhibaanada ay u taalla inay kacaan oo maaragtay shacabka la wacyigeliyo shacabka tuulo kastaba degmo kastaba in maaragtay dadkeeda la kiciyo ee la yidhaahdo warniyo maalin kasta intii lagu dili lahaa maalin kasta intii adi lagu dili lahaa waxaa kuu fiican
in maaragtay oo adigoo sharaf leh inaad dhimatid ayaa ku karaamo badan oo ku qiimo badan marka waxa waajib ah marka in marka dadka la kiciyo deegaanada maalin kasta xoog lagu haysto oo maaragtay dhibaatada dulmiga lagu hayo dhibaatada dulmiga lagu sameeynayo oo maaragtay mar kastana ii sheeg adiga oo lacag baada laga qaadayo xoolahooda la qaadayo oo caruurtooda la wata dadkaas in la kiciyo oo la dhiirigeliyo oo maaragtay iska celiya la yiraahdo shabaab marka aniga waxaan u jeedaa maxaakimtii waad ogeed xilligeeda waxay ku bilaawatay waa la kiciyay dadku way kaceen markii maaragtay ii sheeg adiga Soomaaliya ay bilaawanaysay xilligii maxaakimta oo dadkan dagaal oogayaashii ama hogaami kooxyaday markii laga adkaanay waxay ahayd waa shacba kacay ummadda dhanaa kacday shabaab waa meeshii maaragtay waqtigooda ayaa dhamaaday waqtigooda ayaa la taagan yahay marka qof kastaba cid kastaba waa inay u istaagto iska celiso waagi hor waxa la aaminsanaa shabaab in waxba laga sheegi karin shabaab in maaragtay aan la iska qaban karin waxa la ogaaday shabaab way jabeen kuma haystaan moraal ma lahan niyad ma hayaan waa laga adkaaday shabaab markii oo maaragtay meelaha qaar ay galayaan aad aragtid waxa weeyaan waa xilli ayaga oo maaragtay nafta ka bixi rabto waa ani marka waxaan aaminsanahay shabaab sidii maxaakimta amal ku soo socoto xilligii maxaakimta sidii loo kacay shacabkii ay kaceen kadib arintooda lagu ciyaaray moortay shabaab isku bedeleen mooye haddana tii amal ku soo socotay in waqtigooda dhamaaday oo dadka dhan ay kici doonaan oo maaragtay laga adkaan doono taas ayaa ku soo socotay shabaab Siraaji dad badan oo dhalinyarta kamid ah shabaabka kamid ah way ogaadeen in maaragtay waxay u dagaalamayaan diin aysan ahayn oo wili maaragtay oo gumaad iyo ciribtir inay tahay dad badan ayaa ogaaday shabaabka markay maaragtay daroogiskay abuureen beeray ay ku abuurteen dadkay ka gadayaan markay arkeen maaragtay shabaabka in oo zakawaadkii ay ka dhigteen wax baad ah oo dadka la baadayo maalin kasta jidka loo taagan yahay lacag laga qaadanayo xanti laga qofkii bixin waan la dilay ay arkeen dad badan waxay ogaadeen shabaabka inaysan diin aysan wadin marka anaga mar horaan naga rabay dadka hadda Soomaali markii la fiiriyo dadka ugu dhibaato badan anaga sababtoo ah wadooyinkeena dhan waa go'san yihiin waa la go'doomiyay waa khaasatan hadda Puntland way fiican tahay Allah u ziyaadiyo Somaliland way fiican tahay Allah u ziyaadiyo galmudug waad aragtay nimanka way mar horeyba dagaalkooda ay bilaaween ay ku kaceen ay maaragtay iska dhiciyaan marka Hiirshabeelle iyo maaragtay Koonfur Galbeed ayagana maxaa la rabaa Hiirshabeelle way bilawday dadkii way iska dhicinaysaa way kaceen waxa la isku dayay in maaragtay dad shacab inay laayaan oo dadka si oo kacdoonka ay ugu joojiyaan shabaab maaragtay kilbi ay soo duubeen anaga qabaa'ilka ma haysano anaga maaragtay shacabka ma haysano anaga kan ma haysano calaalkaas maxaa ka keenay ugu dambeynna qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada inay u midoobaan sidii xal waara loogu heli lahaa dhammaan xaaladaha ka jira Soomaaliya sida wariyaheena Sawsar ay warkan inoo ku eegayso ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan ayaa ku booriyay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka inay iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab iyo wax ka qabashada xaaladda Soomaaliya mas'uuliyiinta federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waa inay si dhow isula shaqeeyaan si loo gaaro yoolka dowlad cusub kuwaas oo ay ka mid yihiin ka hortagga al-shabaab iyo ka jawaabidda degdega ah dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee sii xumaaday ayuu yiri James Iswaan sidoo kale James Iswaan ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliyeed inay furo u yihiin qorshaha kala guurka ah ee looga guurayo howlgalka midowga Afrika waxaan ku celinaynaa baahida loo qabo in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka ay si dhow isaga kaashadaan ka hortagga al-shabaab iyadoo ay hagayaan ballanqaadyada xuquuqda aadanaha heer gobol iyo heer caalami ah Soomaaliya ayaa wajahaysa masiibo bini'aadantinimo iyadoo qiyaastii 7 milyan iyo bar ay soo food saartay abaartii ugu xumayd ee ugu yaraan 4 sano soo jirtay taasoo ay uga sii dartay xaaladda cimilada Sawsar Cabdiraxmaan Axmed wararka warbaahinta sahalkee daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa war wixii akhbaaradka caalamka iyo kuwa Soomaalida baan idinkaga haynaa inta warkan war lamid ku kulmi doonana waa anigoo Shacayb Daan Maxamed ah iyo baada sahalkee TV oo idin la sidaas nabadgelyo